Shirkeyni wuxuu ku saabsan yahay jihaadka. Kelmadda jihaadka Quraanka waxaa lagu sheegay 41 mar, halka lagu sheegay Quraanka shafaqada, nabadgelyada, raxmadda 355 mar lagu sheegay Quraanka. Soo gal. Soo dhawaw Hindiyan. Fadhiiso bafadik. Laakiin cagsi ayuu isticmaalay heer galbeedka oo ah si kaleeto. Laakiin diinta Islaamka mid raadisa nabadgelyada iyo tasaamux. Aniga faraya ii taagan. haddii uu yahay islaamku mid raadiyay nabadgelyadu, maxay u noqdeen amaakinka caalamka ugu xunxun sida Afghanistan, Pakistan, Ciraaq oo kaleeto? waxaa ka buuxa dhammaantood iraahabiin islaami ah, soo maahan? laakiin aan taariifin irhaabi muxuu yahay. dadka qaar waxay u haystaan dowladda Mareykanka oo ku duulay Afghanistan iyo Ciraaq inay tahay irhaabi. madaxtaaga xukuumooyin madaxtaaga ma aha irhaabi. meesha waxaa ku heysin afkaar naga dhaaf. mumkin suurtagal inaan fikir ku hayno. haye soo dhawaaw Indian. haddii aan u jawaabaa gabadhaas hadalkeeda, irhaabi macnihiisu ma taqaanaa? irhaab waxa weeyaan caalamka ugu weyn kuwa kulbayda aqalka cadawiya. haye kaligaasa bilaada naga dhaafuraya kalaam run ayaan sheegay fikirkeyga maxaa kalena noosha qorafka 910. ma garanaysaan daarihii dheerdheer ee ganacsiga ah inta ku dhimata ashqaasta ku dhimata ma garanaysaa dadka ku dhinteen qabaaisha Afghanistan lagu baabi'iyey intay dhammaayeen? ma garanaysid. laakiin aniga ayaa kuu sheegaya waxaa ku dhintay 15,000 in ka badan ayaa ku dhimatay mujarad yar dagaal yar oo dhacay ama qarax la sameeyey. ma garanaysaa dadka muwaadiniintaas ayagoo waxba galsan abriye ah in lagu laayay rag iyo dumar iyo caruur iskugu jiraan waxba aanan galabsan. arrinkaas daaliban la mari karo saas tiraahid. ma og tahay oo war ma ka haysaa daaliban inay ahaan jirtay quwad Mareykanka oo hub uu siiyo soo wada dagaalamay irhaabi wax cusub ma ahan oo soo kordhay. waxaa liiga daadanaya Ciraaq unuji fa fiirisay makaaga sheekay Ciraaq inta ku dhimatay waxaa ku dhintay nisbi milyan muwaadin in ka badanna way ku barakaceen. markii la weydiiyey Mareykan iyo Britaanin waxay ku jawaabeen arrinkaasi arrin yar ay ku jawaabeen oo ah aan wax ka xunnahay annagu oo kaliya waxayna baabiyeen belediyadii muslimiinta oo idil. maxaa ka leedahay waxaas? waxaan idin leeyahay Ameerikaanka waxay aaminsan yihiin dhaqan khafiif qaataan nafsadooda madaxweyne isku magacaabaan iska raaxaystaan. irhaab lama dhaha ka joogsada tadaaqulka sameynaysan dadka afaarooda galgalaysaan afaariin in la daba gala marabtiin inta noocaadoo kale ay yihiin ma nooga baxdaan baladeena. waan idinkaga bixi doonaa beledadiina. waa marka aad naga baxdaan adinka beledadeena aad nooga baxdaan.